calankan buluugga ee dul haadayo dusha qunsuliyadda guud ayaa la ii sheegay in dhowr sannadood aan la bedelin. Dhismahan qunsuliyadda ayaa ah mid aad u waxaana la dhisay kontameeyadii, waxaana dhismahani dowladda Soomaaliya ay iibsatay 1972kii, laakiin dhulka uu ku fadhiyo gurigan ayaa ah mid aad u baaxad weyn. halkan waxa iga dambeeya garaashka gawaarida qunsuliyadda lagu xareeyo. midka ugu da'yarna waxa uu jiraa 22 jir weeyaan, waa sanadii 1988. ilaa 4 gaari ayaa ku jira, midkoodna ma fuuli karo highwayga ama xataa ma gaari karo xerada Al-Kharas oo iyadu ku taala duleedka magaalada Cadan. haddaba qaxootigii ugu horeeyay ee soo gaara dalka Yemen ayaa waxay ahaayeen askar kor u dhaafaysay ilaa 400 oo askari. qaxootiga Yemen wuxuu ku soo bilowday 1992kii markii ugu horeysay oo qaxooti Soomaaliyeed ay yimaadaana waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ciidan ka tirsanaa dawladii hore Maxamed Siyaad oo gobolada waqooyiga ku go'doomay oo meel ay u maraan goboladii koonfureed iyo inta waayeen intay dooye soo qaateen yimaadeen Cadan, kuwaas ahaa kuwii ugu soo horeeyay 475 askari oo qaarkood ay xaasaskooda iyo caruurtooda la socdaan. qaxootiga ugu horeeyay Yemen soo gala kuwaas ay ahaayeen inkastoonan markaas si rasmi ah loo aqoonsan. waxaa ku xigay markab weyn oo 5,000 oo qof siday oo dekedda Xamar ka soo baxay oo la dhihi jiray goob weyn oo Cadan toos u keenay. markaasna ay hay'adihii markaasi arrimaha insaaniga ka shaqeynayay iyo maamulkii gobolka Cadan isku qabteen dadkani lama dejin karo iyo waa la dejin karaa. markii ugu dambeysayna maamulka gobolka uu go'aan ku gaaray markabka dadkaas sida in Cadan laga saaro. markaasna nimankii watay markabkaasi ay xeeb aan magaalada Cadan ka fogeyn ay markabkii ku soo caarsiiyeen, halkaasna ay ku dhinteen ilaa 240 qof oo badda ku qaraqmay markii dadkii oo dhan badda isku soo tuureen. markaasayna ahayd markii ugu horeysay ee hay'adda UNHCR ay u aqoonsatay in Yemen ay joogaan dad qaxooti ah oo Soomaali ah loona baahan yahay in kaalmo loo fidiyo. noloshay aad iyo aad u dhibaysan tahay magaalada aan soo gal ilaa hadda jawgeed ma fahmooy wax teen aan haysta male, wax raashin nolol fiican haystan ma jirto. haddaba dawladdii militariga markii ay halkaasi ka baxday ayaa waxaa jiray dawlado ku meel gaar ah oo la soo dhisay. madaxdooda ugu sarsareysana waxa ay inta badan ay booqan jireen dalka Yemen, laakiin midkoodna ma uusan booqan xerada qaxootiga Al-Kharas ee ku taala duleedka magaalada Cadan. Xuseen Xaaji ayaa mar kale waxa aan weydiiyay sababta keentay in madaxda dawladda ku meel gaarka marnaba qaxootiga ay booqan waayeen. horta xerada cid soo aragtay intaas ama Cabdiqaasin ahaado. Cabdiqaasin halkan aan mar guddi qaxootiga ka tirsan iyo guddi dadka Soomaalida Cadan degan halkan kula shirinay, halkan qunsuliyadda gudaheeda. Cabdullaahi Yuusuf hotelkan uu geeyay mar guddi masalaya dadka qaxootiga. Sheekh Shariif wali ma imaanin, laakiin wasiiro isaga ka mid ah mar yimid sida wasiirka cadaaladda iyo wasiirka waxbarashada iyo wasiirka tacliinta sare. intuna way la kulmeen dad qaxootiga, Sancana way kula kulmeen, Cadanna way kula kulmeen. laakiin cid tagtay xerada Kharas oo indhahooda ku soo aragtay xataa basaatinta Cadan ka mid ah cid tagtay oo indhahooda ku soo aragtay ma jiraan. halkan inta ku noolna waxa noogu dhib badan يعني caruurtii yaraayo daryeelaysan, yani dadkii waaweynayo wax loo qaban laayahay. qaxootiga macnaha UN-ka waxay isku sheegayaan in dadka wax u qabtaan, waxba uma qabanayaan. bariis khaleela meesha lagu cunayaa, yani ciyaalka caana ma haystaan, yani way ku darleysan yihiin. isbitaalka diilgeey wax loo qabto male, yani waxa arkaysa qof weyn oo dhiig baxa oo leeyahay wax loo qabanaya. waxa arkaysa ilmo yar yar oo yani ku dhibaataysan oo wax loo qaban laayahay. marka aad eegto qunsuliyadda waxa ay ku shaqeysaa aaladihii hore ee laga tagay. dokumentiga halkaasi laga isticmaalana waa baasaboorkii cagaarnaa. maanta 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 waa madar yacaane maanta 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 mande khalilne maanta 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 waa madar yacaane maanta 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 mande khalilne maanta.
dad walba gumaysi soo maray markii la gaaro xilligii xurriyaddooda waxay u dabaaldegaan maalintii xurriyadda dalka Soomaaliya 1 Julaay ayay ahayd markii xurriyaddooda koonfurta Soomaaliya ay ka qaateen gumaystihii Talyaaniga isla markaana waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliyana ay midoobeen haddaba arintaasi u dabaaldegidda xafladda 1 Luulyo dalka Yemen lagama yaqaan waayo dadka qaxootiga ah iyagu marnaba ma xasuusan karaan maalintii xurriyadda waxaana ka weyn dhibaatada ay ku sugan yihiin intaanan u gudbin xafladda 1 Luulyo ee Addis Ababa waxaan in yar jecelahay inaan idin tuso qaabka safaaradda Soomaalida Addis Ababa ay u shaqeyso safaaradda Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa soo indheeyay qalabka ay isticmaalaan xafiisyadooda qaabka ay u goglan yihiin iyo gawaarida ay ku socdaan oo ah kuwii ugu dambeeyay markay timaado xagga dhaqaalahana iyaga qarash fiican soo gala waayo waxa halkaasi lagu sameeyaa baasaboorada elektrooniga ee Soomaalida oo maalin walba dad Soomaaliya halkaasi ka sameystaan safiirka Soomaalida oo aan xafiiskiisa kula kulmay ayaa ii sheegay inay dadka wax u qabtaan oo mar walbana ay u dadaalaan laakiin markaan dibadda u soo baxay ayaa durbaba indhahaygu qabanayeen dhalinyaro iridda horteeda ku buuqayso oo leh 2 bil ka badan ayaa nalaga haystaa baasaboorradeeni iyagoo watay weliba rasiidyadii lacagta ay ku bixiyeen mid ka mid ah shaqaalaha safaaradda ayaa ii sheegay inay dhalintu saxsan yihiin hawshoodiina lagu guda jiro u soo gudub hoteelka Hilton oo 1 Luulyo ay ku dhigteen safaaradda Soomaalida ee dalka Ethiopia Hilton waxa uu ka mid yahay hoteelada ugu qaalisan magaaladaasi munaasabadda lagu dhigtay dabcan qarash badan ayaa lagu kireeyay waxaana lagu casuumay danjirayaasha dunida u fadhiya dalka Ethiopia Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa munaasabadaasi isna ka soo qayb galay waxay iska ahayd farxad iyo u dabaaldegid inkastoo qofka baahan uusan xasuusan karin damaashaadyada noocaas oo kale ah maanta 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 madaxeen banaane maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxeen banaane maanta 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 waa madaxeen maanta 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 madaxeen banaane maanta 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 waa maalin weyne maanta laakiin waxa aan isweydiiyey goormay ayay talow konsuliyadda Soomaalida magaalada Cadan ee dalka Yemen iyana damaashoodkooda 1 Luulyo dhigan doonaan